السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa macalin maxmuud cashkan wuxuu ka mid yahay casharadii erayada ahaa aynu ka qaadanayna college-ka cilmi academy halkan waxaynu ku baran doonaa 10 eray 7 meesha noo saaran saddexda kalena waa ku dari doonaa markaan 7dan dhame insha Allah midka ugu horeeyo waa goggles qofka markii uu dabaalanayo oo kiyaala waxaa jirta uu xirto saysan indhaha biyaha oo gelin sax ama dadka kiimikooyinka beeraha ku buufiyo ama shaqaalaha yani markuu shaqooyin indihiisa inuu badbaadi u baahan yahay uu qabanayo oo kiyaala ayuu xirtaa. They wear protective glasses luqadda waxaa la yidhahdaa goggles waa oo kiyaalayaal loogu talagalay inay indhaha ku badbaadiyaan ama shaqadaada nolol maalmeedkaada ku jira ama dabaal ku jira iyo walxaa dhammaantoodba marka goggles ayaa la yidhahdaa. erayga labaad waa gorge qofka markuu cuntada boobayo ayaa la yidhahdaa gorge. Yes, when you overeat ama zaa'id markuu wax u cuno overeat qof markuu zaa'id wax u cuno iyada maxaa la yidhahdaa gorge. Sometimes waxaa kaloo loo isticmaalaa eray waxaa jirta la yidhahdo valley waa dooxo. For example buur baa halkaa ku taalo halka kana buur kalaa ku taalo so meeshaan dooxa inta badan kasoo baxayso sax sorry about that dooxa kasoo baxayso dooxadan yani waxaa la yidhahdaa valley markay hoos u qodan tahay waxaa la yidhahdaa gorge. marka eraygan gorge to overeat inuu qof wax zaid u cuno waa u isticmaali kartaa. Valley hoos u qodanna waa u isticmaali kartaa dooxo hoos u qodan dooxo waxaa la yidhahdaa valley gorge iyadana waa dooxo laakiin hoos bay u qodan tahay. erayga saddexaad waa grant. Okay, grant waxaa la yidhahdaa lacagta qofka la siiyo si loo caawiyo. tusaale she received a study grant lacag waxbarashay heshay in $1,000 ama $2,000 lagu siiyo oo ganacsigaada ku horumari ama maxaa hayday hawshan ku qabo lacagtaas ayaa la yiraahdaa grant. Yes, grant waxaa kaloo la yiraahdaa permission fasax inuu macalinku uu amar fasax uu ku siiyo ayadana grant waa la yiraahdaa. Permission bay isku macnaheeyeen. For example waxaa leedahay the teacher gave me a permission macalinku wuxuu i siiyay fasax. Okay, erayga afraad eraygan waxaa loo qoraa great waa great waa GRATE great waxaa la yidhaahdaa in cuntada la jebiyo inta badan carrotka camal ama qumba inaad jebisid oo jebiso ama dhagax ku qoraa ama baalkan greatka isticmaal iyada waxaa la yidhahdaa great. mashiinka la isticmaalan waxaa la yidhahdaa grater carrotka lagu jarjaraa grater. Yes, I'm grating carrots ama she grated carrots not just carrots I need to grate this coconut camal waa dhihi kartaa. marka grate waa in cuntada la jebiyo grater waa mashiinka la isticmaalayo lagu jebinayo. erayga shanaad ayaan ka booday sababta ugu bood waxaa labadaas eray way isleeyihiin. grateful waa qof markuu shukri badan yahay. I am grateful ama haddii kale I am grateful for your help yani waxaad caawimaadka ay siisay waa kugu mahadcelinaya. I am thankful camal thank waa mahadcelin thankful waa qof markuu kugu mahadcelinayo. Lastly gregarious waxaa la yidhahdaa qofka markuu qof wanaagsan yahay ama qof bulshaawi ah dadka dhanna inuu waqti la qaato ay jecel yani isaga la waqti la qaato ay jecel yihiin. so waxaan leenahay Ahmed dadka dhan baa jecel inay waqti la qaataan bay jecel. He is very friendly and he enjoys other people's company. so waxaan leeyahay Ahmed he is very gregarious waa qof friendly ah so waxay isku macno noqonayaan friendly. Yes, friendly way noqonaa waa somebody who is nice and kind qof wanaagsan saaxiibtinimadan ku wanaagsan. so waa tirtirayaa saddexda kale si aan u qaadsiiyo. Good. erayga sideedaad ayaan cashkan ku baranayno waa grab waa informal language. Okay, so formalka waxaa la yidhahdaa food iyo grab waa isku macno. grab waa informal English. Okay, yes, ama informal language. food waa formal language marka labadaas eray waa isku macno they are synonyms. Good, waa laba eray isku macno. For example let me get some food haddaan ku dhihi lahaa waxaan ku leeyahay let me get some grab ni waxaan soo qabsado waxaan qaniin. Okay, marka grab waa food but in formal language. Another word is half-witted. erayga sagaalaad half-witted. wit waa caqli intelligence qof caqli badan. half-witted haddaan ku dhaho waa qof caqligiisa uu bar yahay ma caqli badna. Yes,
ama waa doqon si qurux badan si fool xun taa dhaho foolish marka half witted waa respectful yani qofkan aqligiisa ma dhamaystirna ama waa doqon foolish ayay isku macno yihiin for example don't act half witted inuu doqonnimo ha u dhaqmin waa don't behave foolishly yes another word ama the last word waa hallway dhalinyar hallway waxaa la yidhaahdaa guriga aad degan tahay haduu yani ama iskuulka aad dhigatid ama xafiiska ama isbitaalka hadii hal saqaf isticmaalo they use under one roof qolalka hortooda wada marto ama wadada qolalka hormar marto ee dadka soo socdaan baa la yidhaahdaa hallway waxaa kaloo dhihi kartaa corridor marka corridor iyo hallway waxaa la yidhahdaa wadadaas ee dadka marmarayaan ee soo socdaan yes so the hallway is long or she is at the hallway dhamaantood waa isticmaali kartaa I hope you have learned something so I'll stop it here until next time